أحمد جامع محمود gudoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay weheliyaan gudoomiye xogeenka hay'adaha iyo agaasimaha guud iyo komishanero kala duwan ayaa si wada jira kormeer u kurgelida xaaladda dhabta ah ee ka jirta wasaaradda ganacsiga cadaaladda deegaanka iyo wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maamul wanaaga oo la dardaarmay mas'uuliyiinta wasaaradahaasi kala duwan ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan saaka ka saxaafadahaan isugu yeernay annaga oo ku jirnaa ama gudanayna waajibaadkii qaranka aanu haynay ka heelahan inaanu idin brief garayno ama aanu idin sheegno afar wasaaradood oo saaka aan ka bilaabi doono shaqadeeda afarta wasaaradood waxay kala noqonayaan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska wasaaradda ganacsiga wasaaradda horumarinta iyo reer miyiga wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo wasaaradda cadaaladda afar team baa kala tagi doona team wasaarad walba teamka commissioner baa hogaaminaya shaqada ay qabanayaan way u astaysan tahay oo waa shaqaale u tababaran ama garanaya waajibaadkooda qaranay saaran iyo waxa ay wasaaradda ka soo qabanayaan waqtigan loo asteeyay marka waxaan idinka rajaynayaa dhammaan shaqaalaha hay'addu in ay shaqadaasi hufan oo loogu qaranka ay ugu shaqeeyaan oo asluubi ku jirto wasaaradaha ay booqanayaan ama iyadoo tani tahay mid routine oo aynan ahayn mid ma garanaysaa meel kaliya u taagnaan doonto ay noqon doonto wax socon doono oo aanu meel kasta oo hay'adaha dawladnimo ku jirtaan tagi doono sida dawladaha hoose maxaa la oran jiray hay'adaha madaxa bannaan ee annagoo kala ah iyo wasaaradahaba marka ciddii komishanku dul istaago subax ku abriisto inayna ka nixin baan rajaynaynaa ay shaqada runtii u fududeyn doonaan shaqaalaha u iman doona ka tirsan komishanka maamul wanaaga sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye xogeenka maamul wanaaga Mukhtaar Yaasiin oo si qoto dheer uga waramay mas'uuliyiinta ay soo kormeereen iyo wixii ay iska xog wareysteen